asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. soo dhawaada asxaabiyi kusoo dhawaada channelkeena Griyad Media. maanta waxaynu soo gudbin doonaa taxanihii sirdoon ee Shula Cohen ama dheemankii Mossad. Shula Cohen waa basaasad yuhuuda taasi oo ka howlgeli jirtay dalka Lubnaan. Mossad ama sirdoonka yuhuuda ayaa waxaa lagu sheegaa sirdoonada ugu halista badan dunida inay ka mid yihiin, iyaga oo ka maleega caalamka dhagaaro fara badan, gaar ahaan wadamada muslimiinta ama wadamada carbeed ayaa aad iyo aad ay uga howlgalaan. Mossad ayaa waxa ay Shula Cohen u yaqaaneen basaasadii number 1, iyada oo ka howlgeli jirtay dalka Lubnaan, waxaana ay qaban jirtay shaqooyin ay ka mid ahaayeen waxa ay taariibin jirtay yuhuudda ku nool dalka Lubnaan, iyadoo u taariibin jirtay dhulka Falastiin si halkaasi loogu beero, iyada oo ku shaqaysan jirtay dad calooshooda shaqaystayaal oo u dhashay dalkaasi Lubnaan. Gabadhan caqliga iyo quruxda isku darsatay waxa ay ku noolayd xaafad loo yaqaano Waadiya Abu Jabiil oo ku taala dalka Lubnaan. Gabadhan oo kolkii hore ka ahayd qof shacab xaafadan ayaa markii dambe ka noqotay amiirad, iyadoo u kala gudbi jirtay caasimad dalka Lubnaan, iyada oo ku qoodinaysa sirdoonka yuhuudda xogaha ay ka soo ururinayso dhulkaasi. waxaa iyaguna aan meesha ka maqnayn sirdoonkii Lubnaan oo habeen iyo dharaarba u soo jeeday si ay uga badbaadiyaan dhagaraha loo maleegayo dadkooga, iyaga oo ugu dambeyntiina ogaaday siday usoo afjari lahaayeen filimkii Shula Cohen iyo basaasiintii la shaqaynayay ee jilayaasha ka ahaa. waxaa sirdoonka Lubnaan u suura gashay in hab caqli iyo xeeladi ka buuxdo ay usoo qabtaan basaasiinta ka qaraabanaya wadankooga. waa Toma Shula Cohen, gabadhii caqliga badnayd. Shula Cohen waxa ay ku barbaartay dalka Lubnaan, gaar ahaan caasimadiisa Beirut. waxay ka deganayd xaafadda ay yuhuuddu ku badan yihiin ee loo yaqaano Waadiya Abu Jabiil. xaafadda Abu Jabiil waxay ahayd xaafad ay ku badnaayeen ama ay deganaayeen yuhuudda degan wadankaasi Lubnaan. waxay ugu noolaayeen xaafadaasi sidii dadka gacdoonsan wadanka intiisa kale, lamana ay falgeli jirin dadka shacabka ee reer Lubnaan. xaafadaasi iyo dadka ku nool waxa ay ahayd xaafad uu xalxidhaale ka buuxo, iyada oo ay ahaayeen dad xiqdi iyo xumaan u qaba dadka muslimiinta ee ku nool wadanka intiisa kale. Shula Cohen waxay ahayd dhalinyaradii xaafadaasi ku koray, iyada oo markasta loo sheegi jiray in ay muslimiintu cadow ku yihiin, ayna leeyihiin wadanka Falastiin. Shula Cohen ayaa iyaduna markii ay soo weynaatay waxa ay iyadna bilowday in ay afkaartii ay ku shubto dhalinyaradii xaafadda ay soo ururiso hablihii qurquruxda badnaa ee xaafadaasi, waxaana gabdhahaasi ugu caansanaa Fortuna, Rashin iyo Jamila. waxaana ay gabdhahaasi ku shubi jirtay afkaartaasi ay aaminsanayd iyadu. inkastoo ay markaasi ayna ka howlgeli jirin sirdoonka, waxa ay uga sheekayn jirtay afkaartii ay aaminsanayd ee waalidkeed iyo dadkoogu uga sheekayn jireen. haddana aynu ka sheekayno guurkii Shula Cohen. waxa ay isbarteen nin ganacsada oo loo yaqaano Yusuf Kashka, kaasi oo isaguna ahaa yuhuud, oo ay ahaayeen isku afkaar, waxayna ku heshiiyeen inay isguursadaan, iyagoo ugu dambeyntiina isguursaday. guurkaasi ka bacdi Shula waxa ay dhashay 2 hablood oo iyaguna markii dambe ay u adeegsan jirtay arrimaheeda sirdoon, kuwaasi oo ka noqday markii dambe xaafadda ay yuhuuddu ka deganaayeen caasimadda Beirut ayaa waxa ay ahayd xaafad isku rarana oo ay ka dhisnaayeen guryo qadiimiya. Shula Cohen waxa ay markaasi ahayd gabadh dhalinyaro oo aad u qurux badan, taasi oo dhalinta xaafadda aan marna indhaha ka qaadin quruxdeeda, balse iyadu indhahaasi soo wada eegaya waxdana kama ayna lahayn. waxayna iska wadatay nolosheeda iyadoo u noolaan jirtay sidii qof xor ah. habeenkii waxaana laga waayi jirin goobaha lagu caweeyay ee baarasha ah, dharaartiina waxaa laga heli jiray meelaha xeebta ay dadka isugu yimaadaan. waxa ay xidhan jirtay dharka noociisa ugu dambeeyey ama soo saaraya jidhkeega guud ahaan. marka loo eego hablaha yuhuudda waxa ay ku tartami jireen sidii ay u heli lahaayeen rag dabaqada sare ka soo jeeda, laakiin Shula Cohen iyada ayaa ay ku tartami jireen quruxdeeda iyo sida ay u eeg tahay ragga dabaqada sare ka soo jeeday. Shula waxa ay ahayd gabadh isku darsatay qurux iyo caqli labadaba, taasi uu ka hamiyi jiray nin walba oo ku noolaa kaasi ay iyadu joogtay. Shula sidoo kale waxay ahayd gabadh caqli badan oo qurux badan oo taqaana haasaawaha iyo sida loo soo jiito ragga, sidaasi darteed waxa ay ka noqotay xaafadooda qof caana oo ay yaqaanaan dhammaan wiilasha haasaawe wadaagga ay yihiin. iyadu iskuma ay mashquulin jirin haasaawahaasi iyo howlaha. waxa ay ahayd qof iyadu maankeega wixii ay ka garato samaysaa, iyada oo ay la socon jirtay ninkii ay ka hesho, kii kalena ayna la sheekeysan jirin. sidoo kale waxa ay ahayd yuhuudiyad mayal adag, taasi oo la socon jirtay arrimaha siyaasadda ee ka jira markaasi gobolkaasi ama dhulkaasi ay ku noolayd. Shula
ayaa waxaa isbarteen wiil yahuudiya oo loo yaqaano leon. leon waxa uu ahaa nin dheer oo cad oo fiidho weyn, kaasi oo ay jeclaayeen hablaha xaafadaasi ku nool. leon waxa uu ka mid ahaa maafiyada xaafadda, kaasi oy ka haybaystaan cid walba lagana cabsado. waxa dhacday in Shula Cohen ay u qaado jacayl aad u daran leon, oo markasta ay gurigiisa aan laga waayin, halka uu isaguna u noqday gaashaan cid kasta oo afka u taagta ula dagaalo. haddana Shula Cohen ma ahayn qof la xakamayn karo oo ku ekaata hal nin oo keliya. waxa ay la socotay leon maahina ilaa 10 nin oo kale oo ay ka mid yihiin rag ganacsato ah. leon ayaa ka xanaaqay arrinkaasi isagoo maalin ugu yimid dadii xaafadooda isagoo aad u xanaaqsan, una sheegay inay u go'do ama isaga ama saaxiibadeeda kale. Shula Cohen ayaa waxa ay weydiisay maxay tahay arrinta aan ku raali gelin haddii aad helaysid mar walba aniga. leon waxa aan fikiray badan, waxaanan qorshaystay inaan ku guursado adiga ood aniga gaari noqoto. Shula ayaa waxa ay tidhi waa inaad aniga i fahantaa, waxaan xambaarsanahay dhambaal ka halis badan guurka. leon oonan fahmin hadallada Shula Cohen ayaa waxa uu weydiiyey maxay tahay arrintaad ka hadlaysaa. Shula oo dhoola cadaynaysa ayaa waxa ay tidhi leon waa inaad i fahantaa duruuftayda, aniga ayaa kuu sheegaya wax walba oo jira. waxaanaad ii ballan qaadaa inaad noqoto garabkayga midig, misanaad igu caawiso howlahayga dhammaan, una adeegtid qadiyadda Israa'iil, kana qayb qaadatid dhismaha dowladnimada Israa'iil. Shula Cohen ayaa waxa ay leon u fahansiisay inay u adeegayso danaha reer Israa'iil, ayna raggaa badan ay la kulmayso ay ka dhex aragto danta reer Israa'iil. leo oo ahaa cunsur yahuudiya ayaa isaguna aamusay, isaga oo u maleeyay in ay run tahay hadallada ay u sheegayso Shula, isaga oo ku farxay arrinkaas isaga ah. Shula waxa ay la wareegtay qalbigii leon iyada oo ku qancisay arrinkaasi, iyada oo siin jirtay isna lacag yar, waxaana u fududayn jiray kulamada ay la leedahay ragga kale. haddii uu ku damay jacaylkii leon halkaasi, waxa ay Shula Cohen haddana focuska saartay inay samaysato jacayl cusub, waxayna isbarteen dalxiiso u dhashay waddanka Maraykanka, kaasi oo si lama filaan ugu kulmeen hoteelka loo yaqaano Aslan Georgia. waxaana Shula ninkaasi ay ku soo jeedatay dhoola cadayn iyo daymo soo jiidasho leh, iyadoo aanan siinin ninkaasi dalxiisaha fursad uu isaga caawiyo daymadeeda iyo quruxdeeda. wuxuuna durbadiiba uga kareeyay hoteelka loo yaqaano Almunaadi qaybta VIP-da, waxaana hoteelkaasi ka bilaabmay jacaylkii beentii ee maslaxadeeda ku wadatay Shula Cohen, waxayna ninkaasi muddo yar ay kaga qaadatay hanti gaadhaysa 15,000 oo liiro oo lacagta Lubnaan ah. kadibna garoonka ayay ka sabootiday iyadoo ay kulan dambe ku ballameen. habeenada ka mid a 1948 xilli shirqoolkii dhulka Falastiiniyiinta lagula wareegay uu galay marxalad gabagaba ah, ayaa Shula Cohen looga yeedhay xaflad ka dhacday hoteelka Al Nurmani, waxaana ay ahayd xaflad daansi ama qoobka ciyaar ah. Shulana waxay tagtay xafladaasi iyadoo xidhan saaka madow oo soo saaraysa qaybaha ugu badan ee jirkeega. sidoo kale waxay qurxisay tinteedii iyada oo ku qurxisay ubaxyo guduudan. markii ay tagtay xafladda, waxaa ku wada mashquulsanaa raggii joogay xafladdaasi, laakiin waxaa jiray mid ka mid a raggaasi oon iyada ku mashquulsanayn, aan iyada u soo dhowaanin, kala socday dushaasi dhaqdhaqaaqeega oo idil si weyna isha ugu hayay, sidii aad moodo inuu neefteeda xisaabinayo.